السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا إسكا ورمسيتين في عنتهين ما شاء الله تبارك الله سلوا هذا عن الله ولا لهي وحن الله ياهي الصبح وناكسن وقت إذن تاب وقت وناكسن أنا وحقيتها الصبح وأرور ما شاء الله وحقيتها طبعا كي تقريبا أي إيتهاي سقالك يوح أما 6 ساعة يوح أي إيتهاي طبعا 4 ساعة مدامو waxaan aaday meel ayaan balan ku lahay oo magaalada santarunka magaaladeyna meesha oo maxaa la dhahaayay dawladda hoose ay ku taalo ayaan balan ka lahay soo dhawaada aan leeyahay waa meeshan waa magaalada deganahay santarunkeeda amba gudaheeda waxaa meeshan ku dhan wixii dukaan ahay inkastoo dukaamada dhan soo marmarin oo ay ahayd waqti aroor dukaamuhuna xirnaayeen laakiin meeshan hadda ujeedaan waa meel loogu talagalay dadku inay isku nastaan daawadaan marka ay tahay kulaylaha roobka biyaha da'ayo marka kulaylaha hadda meeshan timaado waad ku nasanaysaa waxa loogu talagalay in lagu nasto leeska in la doogsado waa meel iska nasasho la iska daawado biyaha u da'o markasto marka alxamdulillah soo dhawaada aan leeyahay saxaabteeda quruxda badan ee qiimaha badan ee qaaliga ma sha Allah tabarakallah isha ayaa iga jeclaatay waxaan dhahay Allah saxaabtaad bariyahan wax ma soo duubin vlog marmar maaragtay maadaama qabowba dhacay oo dhaxan jirto lama baxo vlogyan buu xiisan dhahay saxaabtaaduna way kula xiiseen maaba u duubtid saas darteed ayaan ku soo duubay walaalahayga khayr ka badan ee qadarinta iyo qiimaha iga mudan ma sha Allah tabarakallah meesh biyaha aan maaragtay markaas iska yara daawanayo waqtigeyga ku sugaayo ma sha Allah meel aad u qurux badan waaye waqtiga waliba hadda qabowbaa jiro marka qabowbu jiraan de wixii maaragtay adaab qabow ku haya laakiin waqtiga aad u qurux badan meeshan qorig la tuuro dhulka kuma dhacayo ushi la tuuro dhulka kuma dhacayo sababtoo dadka dhan ayaa imaanaa oo iska rabo meelaan qabowga ee dabaysha macaan iska rabo markaasoo kale aaday buuxda jaam u tahay ay dadku u badan yihiin oo meelaanay inta farfariistaan meelaan waxaa ku dhadhow dukaamaha maqaayadaha wax laga cuno maqaayadahaas inta soo dhoobtaan banaanka iska soo farfariistaan ayay meeshaan oo dhan buuxdaa hadda waxayran ka dhaqaaqay horaan usii soconaynaa nakeen meeshaas aa ujeedaan gurigaan aa ujeediin oo hoosta korkaa ka guduudan waa shaleemada meelaha shaleemada oy dhahaan shaleemada laga galo waaye marka wadadan tooskan ku soconaa marka birtaan weyn gurigan weyn oo kalena waa kaniisad oo geeskan kale iga xigo marka dukaamiina dhinacaan ayay iga xigaan laakiin kaas horteyda ay hadda ujeedaan waa shaleemada oo waxa waaye tiyaatarada meelaha ay ku dhigtaan waaye meelaha ay tiyaatarka iyo riwaayadaha ay kusoo bandhigtaan waaye marka soo dhawaada in leeyahay saxaabi soo dhawaada dukaamii way xiran yihiin dadka socda aad u yar yihiin waqtiga sideedaba oo isniintana dukaamaha lama furo sad u ogtihiinba maanta waa isniin dukaamaha waqtigaas lama furo waxaa la furaa dukaamaha duhurkii markii la gaaro 1:00 duhurnimo marka waqtigan maadaama ay aroor tahay maalmaha kale iska furan yihiin laakiin maanta waa maalin isniin meel furan ma jirto meel kasta way xiran tahay dukaamuhu meelaha cuntooyinka bas ayaa furan waqtiyadan saad la socotaanba meelaha kale way xiran yihiin hadday ila socda maanta waxaa soo baxay socod oo dhinaca lugta dukaami waa kuanaha laakiin way xiran yihiin ma furno 1 iyo 2 qof ayaa dhexda uga jiro markay maaragtay waxay diyaarinay duhurka ay ku shaqay lahaayeen laakiin waxa oo shaqaynayo oo dukaan open ma ahan saxaabta qaali caajisinayso dhawaada ma sha Allah tabarakallah ana waxaan isdhaha saxaabtaada meelahan quruxda badan oo aad indhahaada u fiican ina iska daadaawato ayagana ha kula daawadaano waa vlog cajiib vlog yaran qurux badan waaye oon jeclaystay marka daawasho wacan
kusoo dhawaaw shaahaad soo qaado iska daawo meeshaan qaxwo haddaa cabaysay haddaa koofi cabaysay haddaad kubashiin cabaysay haddaad shaah jecleeday haddaa ay casiir amba cabitaan kala jeceshahay yaa welkaama kulay soo fadhiiso qalbi furan niyad furanna ku qaabil iska daadaawo magaalada marka wadankaasaha waa ujeedaan baaskiiladoodii meelaha ugu xirxiran dukaamada way xiran yihiin badankooda laakiin dhowr qofaa imaaday oo baaskiilahan meelaha ku xiran dadkaasa iskale oo gudaha ku jirjiraan qaarkood dukaamihii dharka waa kuwaan waa ujeedaan miraayadda waxay xayeysiiska u saaray waaye marka dukaamihii dharka waaye hoolki meesha dukaamaha kor way ka xiran tahay roobku ma da-aayo dhaxanta waa xoogaa maaragtay dugsi waad ka heli xoogaa marka soo dhawooye maasha allah tabaarkala dukaankan waad aragtiin meeshan dadka yaqaan way yaqaanaan intaan aqoonina waa laga dabageynaa waa dukaamihii dharka ee u dhawaay muxuu ahaaye tilburuq waaye magaaladeyna yaa magaaladeyna asxaabta way barato xaafadayna waaw maasha allah tabaarkallah soo dhawaada idin leeyahay asxaabta qaaliga ah dukaankan waa kan ahaa meeshan waxaa joogo ay ku xayeysiinayaan biirkaas jaakadahaas ay xayeysiinayaan iyo maxaa la dhahaa eygan oo faynuusta wato dhegtiisa faynuusaa ku jirto ey faynuus wato weligay ma arkan ayaa ka hor cidaan kana biir waa biirkii riiska ahay oo kumihiisi wax le meesha u yaallo waqtiyada waxaan caabudi jireen ayaa soo socdo oo krismaska marka meelahan oo dhan nalal ay ku xirxirteen way qurquruxsadeen yaa waa waqtiga iyagu wuxuuda maaragtay ay sanadka cusub ay soo dhaweeyaan marka meelaha badankeeda nal ayaa ugu xirxiran inkastoona waqti fiican u helin oonan u istaagaynin amba u joojinaynin hadda wuxuuda ayaga iskala iskaga xirxirtaan yaa howlka waa kaasaas u dheeriyaa u qurux badan yahay waa cid lama ahane maradkii lasoo kackaco sida u buuxo dadku amba isu dhinac marayaan amba isu kala gooshayaan dukaanka iyada wax looga gadanaa adaab cajibaayo waa cariiri waqtiga kale aad iyo aad hoolka u qurux badan yahay maxaa la dukaamada dharka ilmaha ku jiro ay u badan yihiinbo siimaan ayuu dukaan oo ilmaha dharkooda dukaan waxaa jira markaas ma hor istaagin laakiin ilmaha dharkooda kaliya qaaso ah oo qaali ah oo mirag ah amba magaciisa laga dambeeyo maasha allah tabaarakallah marka soo dhawaada hee asxaabtayda soo dhawaada ilaa ujeedaan hoolka dheeran ku luweynayaa waa aniga oo meeshan idiin soo duubaayo waqtigan hadda cod aan saarayaa codku waa waqti kale aan saaraayo laakiin sababtoo ah codka kale xoogaasa waxan ayuu iga yeeshay waa idinka xira buuqa idin diiday marka hadda cod ayaan saaraa insha allah soo dhawaada idin leeyahay saxabta qaaliga ee soo dhawaada hadda laamiga ayaan rabaa inaan inta u gooyo hadduu alla idmo oon dhinacaas u baxo waay meeshaan u socda aniga waa dhinacaas laamigan jeclahay insha allah inaan gooyo marka isla socdo wanaagsan yaa soo dhawaada idin leeyahay caajisina waa kaas meeshaan riixanaa marka meeshaan riixdan laamigan waan gooynaa hadduu alla idmo waa ujeedaan baabuurtii waa iga istaagtay ana ii furan tahay baawur ayaa iga istaagay aniga ii furantaa waan gooyey waan ka gudbay laamigii baaskilkan waa idilin yaa waa inuu idiluu raba ka oranay baaskilka waa igu dhawaaye saxaabta qaaligaa bismillaah haye meeshii aan rabay ayaan usii socdaa hadduu alla idmo soo dhawaada idin leeyahay yaa meeshan waa baarkiira baawurkiiradooda lagu baarkiir gareeyo danahayga soo dhammaystay meeshan shimbiro ayaa joogo shimbirahan ayaan soo agmaray shimbiraha waa shimbiro qurux badan meeshan cuntaa loogu dadaadiyaa loogu firdhiyaa ayaga xataa biyaa meeshooda ka dhacaayo meeshan qof walba way taqaan korsfeeq a la yidhaah waa taqaanin korsfeeq yaa meesha shimbirahan ma cabsanayaan aday ku arkaan aday ku soo aadayaanba waddankeenana shimbir iska dhaafi wax kasta kaa cararaa intana waxay ku barteen dadku markay u yimaadaan inay cunto siiyaan markaas kuwa imaanayaan mujeedaa lugeyga haddoos taagan yihiin markay ay meeshay kaa cabsanahayn soomaalina aragtay shimbiraha amba afrikaankaba agtooda soo ma istaagi karta markay ku arkaan muuqaagaba amba hooskaadaba
harrafa ay wada leeyihiin. waxaas maxay tahay? waa inaan loo naxaynay ogyihiin oo ay naxariis arkaynin oo la dilaayo amba la qabsanaayo. markaasi kaa cararaan kuwan la waxay barteen dadkan inay u naxariisanayaan oo ay cunto siinayaan. ilaahay naxariistaa kusoo dejiye dadkayna ayay dadkayba dilaayaan. shimbira iska dhaaf dadkaynu. laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa lagama quusto ducadiisa. waa u ducaynaynaa in ilaahay raxmadda nagu soo dejiyo. meeshaan meel biyo ay ka caabaan, waa cuntadooda waa loo keenaa. meeshaan ay iska fadhiyaan dadaa u imaanaa. wax meesha maraaba rootigooda qashinkooda horaa loogu dadaadiyaa. maantana irsaaqadooda dhulka iska taal alxamdulilaah. yaa waxaan maqli jira qaraab dooro oon qashin leen allah ka dhigo. shimbirahan dooro camal leemaho ayagana dhulkaasay afka gudhub ku siinay waxay cuntay keeley. yaa ilaaha u maciinay u gargaaray. ilaaha irsaaqada kuma dhibin. marka soomaaliya waxaan idin leeyahay dadka aad dilaysaan iyo dhiigaga aad daadinaysaan bal hala joojiyo. halaysu naxariisto. naxariista iska dhaaf bini aadan ilaahay karaameeye. xayawaanka ayaa naxariis kaaga baahan. bini aadankana ilaahaba sii karaameeyo. karaama ikistara ayuu haystaa. ammaansii dhiigiisa, ammaansii cirdigiisa, xoolihiisa ayaaba lagu yiri. dadkayga anaa ka mas-uul ah iska dhaafaa lagu yiri. hadda meesha baskaa imiday maanta waa idin sheegay. baawur ma wato, baskayga iyo lugtayda ayay ka shidan tahay. meesha waa meesha baska laga raaco. yaa baskan sugaa saacadahaas ma jidiin, daqiiqadaasa fiirsane. baska goorto imaanaya kuugu qoran. marka uu idinkaasaa baskan sugaa. hadda meeshan baska lagu sugaa. ayihii baska basteejada baska ayaan joogaa. basaska meesha u kala babaxayaan. meeshaan hadda idinkugu aadinaana waa meelihii dowladda hoose oo sharciyada laga soo qaato iyo waaye oo macnaha maxaa magaaladayna. marka soo dhawaada hasmarteena minanku minankiini waaye. yaa minanku minankiini waaye. meeshaan waa ujeedaan waa meel qurux badan. haddi markuu fideoga idin soo gaaro commenti iyo like iyo subscribe cusub. intii ugu cusubna subscribe iisoo saar adoo raaliya. commentina iga soo qor. laygana ihayga xaasidin iina sii sheergaray. haddaa hore iila joogtay commenti qurux badan, layg qurux badan inaad sii sheergarayso. khayr allah idin siiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jisaaka allahu khayr walaalahay. asalaamu calaykum.